السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا سيد الميديا وعاون مرتنا أن اللي يرى متعلمة أقوية هنا عبدالرزاق أحمد صالح وخميدا ديجان كقبل كسنة جارهان مقالة عرقابو عبدالرزاق سيندونا برنامج قرن وكدوان برنامج هذا تنأه ورئيسك سؤالي جوابته عبدالرزاق كسر سيد الميديا waxaanu aadna siin doontaa wixii aad xog ka ururisay iyo xaaladda guud ee gobolka ka jirta haday nabadgelyada tahay haday nolosha guud tahay haday ganacsiga tahay soo dhawo Cabdirasaaq ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل واحد عبد الشميلية والسلام يا شقاله يا هودنا بدنا وعيو عبد الرزاق أحمد صالح نحاول عندنا أن كنا نوعيو وحي أنك جاري كروان كبني إيو قبل كسناك guud ahaan iyo gaar ahaan walaalaha ka soo cusboonaaday nabadii la dhisay asaasay yaa jiriyay hadda xagee xaaladdu maraysaa waxyaaba noocaas ah rabaa inaan taataarto walaal nabadda gobolka sanaag waa loo soo halgamay dadka gobolka sanaag iyagaa iskoodu heshiiyey iyagoon dawlad kale hay'ad dad kale oo Soomaaliyeed qabaa'il kale midnaan soo dhigin iyagaa gaartay inay nabaddu u dan tahay labadoodaba maadaama ay dadkii gobolka wada tegay ay yihiin dad qabay oo ehel ah hase ahaatee xaaladiina ayaa tanaasulkaa sameeyey iyo shahiidnimada iyadoo beelihii kale qoryaha sitaan intay ayay kasoo baxeen dasoyskii nacaydka iyo qabyaaladda kadibna waxay garteen walaalahood inay la heshiiyaan marar badan ayay fariimo iyo waraaqo usoo direen odayaashii harti gaar ahaan beesha westengeli oo ay walaalahood soo invite gareeyeen marar badan waa u guureeyeen waa u jirmaadeen waa intaasoo dhan kama dambaystii waxaa lagu guulaystay in nabadda gobolka sanaag ay meelo badan ka dhacdo saasna ay sees ugu noqoto guud ahaan berbilowgii nabadda Soomaaliyeed saas ayaa gobolka lagu degay dadkii kale markaa gobolka deganaa ama markaa gobolka u haray oo iyagu ay kasoo jeeda waqooyiga magaalada Ceerkaabo markaa iyagu waxay wateen qolyaha dagaal bay kasoo baxeen dagaalkii dawladda Soomaaliyeed bay ku jireen dawladda xoog weyn oo ay la dagaalameen marka halka khalad ka dhacay waxa weeye maadaama bulshada qaar ay tanaasushay oo odayaashii gobolka kasoo jeeday degmada baran yube armale waxaa loo arkay in odayaashu markaa ay xoogaa yar handradeen ama bateen laakiin arrintu sidaa way ka fogeen waxay ahaa xalku inay odayaashu markaa in la sii dagaalamo inay maalayacni tahay dad inay sii dhintaan inay maalayacni kala tahay inay dembi tahay saas ayay u fakirayeen dooda kalena madaxsun bay qaadatay oo waxay u aragtay in kaa ay adkaadeen ama ay guulaysteen iyadoo ismaa tahay ayay ka bursano magaalada iyagu marka hadda xukumayeen dadka ku cashuurayeen muxuu ahaay hantidii ummadii Soomaaliyeed gacanta ku hayeen hadday iskuullo masaajido dhulkii beyska maxkamadihii adugu saxaabada shacabka oo dhan ay hayeen qaarna xafiiskooda u deganaayeen cidi ku hadlay arrintii iyada halkaa marayso dadkii gobolka sanaag ay sidaas labadaas kala fikirayeen maadaama dadka qaarna ay tanaasuleen qaarna ay u arkayeen iyagoo raamale inay talaabta waxsan qabsadeen ayaa wada perception ayaa arrin wacyi guud uu ku kala koray marka waxaa timi hadda arrinta markay maraysay lagu cashuurayay ay beelaha qaar oo aan loo simeyn maxkamadahooda saldhigyada cadaalad tigayay ayaa maanta arrinta halkaa kasii durugtay meelaha qaarka duldurusi arrinta halkan shiran ka dhacday oo ahaa duldurusi cad oo taa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ba arkaysay gaar ahaan intii gobolka deganeyd dagaalo weeraro oo toos marar badan ay dad magaalada jireen iyo tuulooyin oo waxay sameeyeen inay nabadda xidhaan bay mar labaad ku talagaleen odayaal ka badan oday dagaalkan fadhiyeen waa loo gadiday waa loo soo farsan waayay odayaasha markaa yimaadeen dhowr qodob bay dheheen waxay dheheen dhammaanna waxaynu cid kasta oo Soomaaliyeed oo waxaan loo aragnaa dhexdhexaad waladii halka joogtay waa diideen inay yimaadaan waxayna dheheen waxaad tagtaan meel la dhaho gulwiidka olaa qodow dhow arrintaas marka halkaasay maraysa qil iyo qil ay maraysay gadood baa dhacay marka ciidanka halkaa joogay baa gadooday sidii odayaashu marka warbixiyeen kadibna waxay sameeyeen meel nabadii inta la jabiyey dhisma uu socday MCS iyo masaajid uu ka socday kadibna gadoodkaas markuu dhacay odayaasha qaar baa dad wada qabtay iyo waxaa u baxay si ay u badbaadiyaan intii kale oo nabadda weliba ku suntaneed baa la xiray si bahdilaada iyadoo weliba ay qabiil naayeen waayo haddaana qabiil badnaayeen maalinta hore ee nabadda la jeliyey bay waxay samayn lahaayeen kuwii nabadda jeliyey dee wax dhismaha gaabay ay xiri lahayn taasi may dhicin markii qoladan ay intaa yar ee gadoodka dhacay ciidanka badawdeen markay arkeen diniya oo socdo hortooda qaaduu odayaasha la xiray
marka socdan kale waxay aaminsan yihiin maanta xeerka qabiilka ama xeerka geeljidaha oo soomaalida miyiga ay ku dhaqmi jirtay haweeye mar haddii labada qabiil ay walaaltinimada iyo tanaasulaadku iman waayo waxa yimaada waxa la dhaho inay qabiiladu ay naflacaan wax la difaac qabiilku sharaftiisa iyo ciddigiisa difaacdo oo marka ay difaac galaan marka hadda socdan waxay hadda ka fikiraysaa magaalada in la wada deganaado ama lagu kala maqnaado maadaama qoladaas tobanka jeer tanaasulka la sameeyey ay wax tanaasulaada iyo wax walaaltinimo ah ay garan waayeen soddonkaasna hadalka kaadideedaan subax baan soo galay sidaadi waad cararaysaa hadalada intaasaa dheereed oo weliba aan dagaha laga maranayay odayaasha madi annaga wiilasha dhalinyarada ahaa xilliga dagaalyahanada ahaa gacmahay ka tijiriyeen mid qura waxay u diideen inuu qori qaato way xirxireen way bahdiyeen waxay u samaynayeen in qolada kalena waa iska cadabsan doontaa bal idinku horta wixii khaladkii khalad lagu soco ha laga fogaado khaladkii khalad lagu soco ha laga fogaado maanta nin arrintaasi waxay soo tabsatay ooda dabac cusub baa yimi dul cusub baa la sheeganaya markii ergaabo lagu soo noqday ee nabadda la shaqeeyey feelashii waan haynaa qaaranaaba gacanta ku haya 17 meelood baa la isku hayay oo ay kamid tahay laascaale kamid tahay jiidali ay kamid tahay ergaabadan iyo dhulka masagan sidan kuma jirin 17 meelood ee la isku hayay ee muranku ka jiray waa meel cusub iyo dabac cusub iyo wax hor leh marka walaal arrintu asaasa u dhacaysaa waxaa kaloo jira dadka gobolka degan qolada dhulbahaanta iyo qolada haba socdo way ogyihiin gobolka waxa ka socda in feer iyo jifo looga go-ay inay dadkii kale ka sheegteen walaalkiiseen odayaal waaweyn baa idaacadda lasoo istaagay oo afka ku ballaariyey haddii sidan iyo waqdariye la wada degi waayo eergaabana la wada degi maayo waa beliefka run waa aaminaada runta ee taala gobolka sanaag magaalada in iyagu leeyihiin aaminsan yihiin iyadoo dooxooyinkii dadka kale ay kulaalayaan oo uu kulaalayo yufle masagan xamo ay magaalada saaran yihiin haddana waxay kuleeyihin degmada iyada nalala joogi maayo haddii gobolkii dhulkii kale naloo diiday dhulka kale cidima diidin dhulku ummadda soomaaliyeed waa ka wada dhexeeya waana la wada leeyahay laakiin waxa weeye sheegashada iyo degaanaynta ayaa dadku diidan yihiin marka masaajid soo rarto oo tirahdo masaajid baan ka dhisaya meel cidlo ah oo dooxa ah oo dadkii ka duran jiray arrintaas dadku gobolka waxay warteen dabax qaawan waana taasee tafraaqka keenay waxa weeye dahabka waa la wada guran karaa haddii ku jiro geedaha la wada daaqi karaa ejigaa la kala kiraysan karaa xilaasaa male dhulka ummadda waa wada leedahay laakiin waxa weeye degaanaynta iyo magaaleynta cusub ayay wey meesha problemka ka jiro arrinta lala qaylinayo laleeyahay masaajidkaa la gudeeya aqoonyahankii iyo odayaashii iyo wadaadadii iyo shiif iyo shariif ay ka wada hadlayaan waxa weeye waa masaajidku waa masjid diraar waxaa dhahaa masjid cabdillaahi bin masrool madiine ka dhisa xilligii nebiga masjidka nebigu waa nacrabay waa la dumiyey waxaana loo bixiyey masaajid wax lagu dibayo oo dul lagu doonayo cabdillahi bin masrool inta masaajidka loo yiri annagana noo baxantee noo anfiyey dadkaanu khayrka ugu sheegaya nabigiisii marka masaajid lama diidane waxay diidan yahay walaal macnaha ku horlamaan iyo baatilka lagu raadinayo masjidka waxa u baahan iyo mtska mike magaalo weyn ah waxa u baahan yidib waxa u baahan kulmiye waxa u baahan laakasoo intaan kamid isku diyo sababta ni ilaa looga dhisay waxa weeye ges iyo gartamo arrintu waxaakaas waxa weeye marka xaakan marka dadka gobolka anigu aan kasoo jeedaa waxay u diyaar garoobeen sidii ay diiwaasnimadii meesha ka baxday saaca nafsi wax la dhaho oo marka ay difaacsanaan xeerkii jeejiraha ee ah ninkaa shanta kaa reebay sharcigu kaama heero taalla dowladooda u aragtay wararka ay nabad soo duunayaan nabad siyaaqan haatana anigu saas ayaan aaminsanahay nabad waxdaana in dadka cadowgii kusoo noqdo maadaama magaalada adigu aad isku haysatay dukaanada ugu badan dowladda maamulka maxkamadii adigoo la-aanteena daliil tahay maxkamadaada loo soo gar noqonayo xilligaada loo soo cadaalad doonanayo sidaa lagugula soogay sidii ummadda soomaaliyeed aad caasatay ee lagu haddana dadku waxay diyaar yihiin nabadii iyo inaad teejiso hadalka sunada dagaalka iyo jimicsiga waa sidaas weeye hadalka waxa laga yaabaa inaan xoogaa laftaydu wiila ka arkay yeelko laakiin waxa la yidhi haddaan dadka la sheegin waxba ma hagaagaan maadaama dadka anigu dad badan oo dhalinyaro aan afkooda ku hadlayo sidaas ayaan caddeeyey aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq waxa weeye mar labaadna waanu ku mahadnaqaynaa inta aynu hawada mar kale ku kulmi doonno annagoo wareysanaynaa xubno kala duwan oo kamid a bulshada ku dhaqan gobolka aad iyo aad ayaad umahadsan tahay sidaa iyo habeen khayr leh waa aad iyo aad umahadsan tahay